والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله إلهي وما أنزل سبحانه وتعالى يقول لي وقت بركة وأن كما موسى يقول إلهي سبحانه وتعالى iyo da'ya taxdiday محمد دماتي خيركم من تعلم القرآن وعلم. waxay ku qeybgalaan qur'aanka barashadiisa abaan qaliga cagalihi hay'ada lacag lagu heli maayo, nasab lagu heli maayo, maal lagu heli maayo, kala lagu heli maayo. hay'ada waxaa lagu helayaa inaad noqoto qofka dadka ugu qeyb badan, inaad noqoto qofka qur'aankii bartay dadka baraya. ilaahay subxaanahu wa tacaala akhrintiisa maalinta qiyaamo waxa weeyaan qofka qur'aanka akhriyaa, qofka qur'aanka adduunka akhrinayay ee dadku dhaqmeeyey ee dadka barayay ee la noolaa saaxiibkii ahaa, qofkaas maxaa maalinta qiyaamo la odhanaya? qur'aankii akhri oo socota jannada kor. meesha aad ku dambaynaysaa waxay noqonaysaa ayadda ku dambaysada سورة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. مركب وقتين اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. أخذك الصعوبة عليك كانت شرادة وقد القرآن كليا القرآن كما تصور لنا يقول مايو بارك الله فيكم شرف عوفنا شيء كسر الله صاحبه ويقول لي خيري وناكم كليا. wuxuuna ka kormaraa waxyaalihii la midka ahaa isaga buu ka kormaraa shayga qur-aanku la saaxiibay. ashyaadii kale ee shayga la midka ahayd ayuu ka saarmaraa. tusaale qur-aanku waxa uu soo degay bisha ramadaan. bisha ramadaan waxay ka mid tahay 12 bilood sooma oo ka fadli badan sabab fadli bisha ramadaan qur-aanku soo degay. bishii ramadaan bilihii kale ee 12 bilood way ka fadli badan tahay. fadligaasna waxa weeyaan waxay ku heshay qur-aanka soo degay oo bisha qur-aanku soo degay. habeenada